soo dhawaada saaxiibayaal maantana waxaan diiradda saari doonaa ama aan xogo qodobbo ka tataaban doonaa ka faa'iidaysiga dhallinyarnimada. Dhallinyarnimadu waa xaalad nololeed oo ku soo beeganta inta u dhaxaysa carruurnimada iyo qaangaarka. Waa xilli uu qofku ku jira koritaan dhanka jireed iyo dhanka maskaxeedba. Marxaladdan waxay inta badan ka bilaabataa da'du markay tahay 10 sano ilaa 20 sano. Dhallinyarnimadu waa fursad qaali ah oo qofku ku diyaarsan karo mustaqbalkiisa wanaagsan. Si loogu faa'iidaysto marxaladdan qaaliga ah, waxaa baahan yahay in laga shaqeeyo dhowr dhinac oo muhiim ah oo kaa caawin karo inaad ka faa'iidaysato dhallinyarnimadaada. Waxbarashada iyo aqoon kororsiga. Waxbarashadu waa furaha horumarka. Waxay inta badan dhallinyaradu diiradda saaraan in ay raadiyaan xirfado nolosha muhiim u ah iyo ka qayb qaadashada tababarrada xirfadda wanaagsan leh. Ka qaybgalka tababarrada iyo xirfadda nolosha kor loogu qaado taasi waxay kaa caawin kartaa inaad hesho guulo muhiim ah. Saaxiibka fiican. Waa muhiim inaad doorato saaxiib wanaagsan oo mar kasta kugu dhiirigeliyo barashada waxyaabaha wanaagsan iyo inaad ka hortagta dhibaatooyinka ku soo wajaha mar kasta. Maamulidda wakhtiga. Waa inaad maamushaa wakhtigaaga oo aad u kala saartaa qayb cibaado, qayb waxbarasho iyo qayb jimacsi. Haddii aad intaas samayso, waxaa hagaagaya jadwalka noloshaada, waxaana toosayo inaad mar kasta hesho enerji aad ku gaarto guulahaaga, hamiga iyo himilooyinka cadcad. Tiigso halka aad rabto inaad gaarto oo ogow halka ay wax marayaan maalinba maalinta ka dambaysa. Dib u eeg waxyaabaha soo qabsoomay iyo waxyaabihii aan soo qabsoomin. Raadi kuwa aan qabsoomin sababihii ay u qabsoomi waayeen oo raadi xalkooda. Ku dhaqan akhlaaqda wanaagsan. Kula dhaqan bulshada akhlaaq wanaagsan si ay ku ixtiraamaan. Ogow bulshada halka aad dhigta ayay ku dhigayaan. Daawadahaygow, haddii aad muuqaalkan wax ka faa'iiday, fadlan nagu dhiirigeli sheerta iyo laagta.